xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa maalintii shalay ahaa waxay ka bixin caasimada magaalada Muqdisho iyagoo ku sii jeeday dalka Uganda ugu dambeynna safarkooda ay gaareen halkii ku sii jeedeen. Kama hadlayno bixitaanka xulka kaliya, waxaan ka hadli doonaa labada kabtan ee sanadkan hogaami doona xulka qaranka dalkeena Soomaaliya 20 jirada kuwaas oo ka qayb gali doona tartanka Sakafa Challenge Poi Cup oo sanadkan ka dhici doona dalka Uganda. Hogaamiyaha xulka qaranka Soomaaliya Bashir Hefer kaas oo dhashay dalka Ghana ayaa magacaabay 20 ciyaartoy sidoo kalena magacaabay labada kabtan ee hogaami doonta kabtanka koowaad iyo kan labaad. waxaa kabtanka koowaad loo magacaabay ciyaaryahanka lagu magacaabo Faisal Ahmed oo dadka badi u yaqaaneen Hazard iyo badbaadiyaha xulka qaranka Soomaaliya ahna goolahayaha kooxda MCC Saciid Yamani kaas oo loo magacaabo kabtanka labaad. Faisal Hazard waa markii ugu horeysay oo noqonayo kabtanka koowaad ee xulka qaranka Soomaaliya, balse hore wuxuu u noqday kabtanka labaad ee Ocean Stars. Faisal ayaa markii labaad la safri doona qaranka Soomaaliya tartan heer caalami ah halka kulan saaxiibtinimo oo la safray wadankeena Soomaaliya xilli 3 gool oo ka soo dhaliyay wadanka Djibouti. kulan saaxiibtinimo ay wada yeesheen labada dal ee dariska ah Soomaaliya iyo Djibouti. Saciid Yamani ayaa ah kabtanka labaad xulka qaranka Soomaaliya maadaama dhowr jeer uu matalay xulka Ocean Stars. si walba Faisal iyo Saciid Yamani ayaan ahaan doona kabtanka koowaad iyo labaad ee Ocean Stars kuwaas oo ka qayb gali doona tartanka Sakafa Challenge Poi Cup Under 20 oo sanadkan ka dhici doona dalka Uganda. kulan koowaad ayaa xulkeen wuxuu la ciyaari doona Burundi maalinta Talaadada ay isbuucan ay ciyaari doonaan kulanka ugu horeeya. ifaalada waxay u muuqanaysaa mid aad u wanaagsan Ocean Stars maadaama sanadkan la waday xidigo da'yar kuwaas oo wax badan laga fili karo hanaan ciyaareedkooda. haddaba daawade haddii aadna daawanayso aragtidaada hoos inoogu reeb sidaad u aragta ciyaaryahan Faisal oo ka mid ahaa ciyaartooydii qurbo joogta ahaa ee ka imaatay dalka Sweden kana haray xulkana matalay goolalna u dhaliyay. waxaana la xasuustaa goolku ka dhaliyay dalka Ethiopia sidoo kale 3 leedu ka dhaliyay dalka Djibouti taasoo ka dhiganba kulamadii uu wajahay in xulkeena uu ka dhaliyay ama u dhaliyay 4 gool. aragtidaada hoos inoogu reeb rajada xulka sanadkan u rajeynayso iyo kabtanka la magacaabay maasanadiin.